xildhibaan cabdulaahi saleebaan maxamed waa codeeye xildhibaan cabdiraxmaan xuseen faarax waa codeeye xildhibaan daahir cabdi shiiqow بسم الله أحمد عبد كاري عبد الله أحمد سمتر أحمد عبد كاري أحمد عبد كاري أحمد عبد كارية أحمد عبد كارية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نتيجة codadka sida loo kala helay waxaan ku wareejinay annagoo guddigii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka galmudug gudoomiye natiijada ku dhawaaq بسم الله الرحمن الرحيم doorashadii golaha sharci dejinta dowlad goboleedka galmudug kal fadhigiisa koobaad fadhigiisa sagaalaad ay maanta u fadhiisteen ajandihiisuna ahay in ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka waxaa noo dhammaaday doorashadii madaxweynaha sida uu tilmaamayo qodobka 47 faqradiisa C ama A musharaxa doorashada wareegeeda koobaad ku guuleysta 3/2 codadka golaha sharci dejinta baarlamaanka galmudug ayaa ku guuleysanaya madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee soo socoto musharaxiintii ka qayb galay doorashada oo ka koobnaa 4 musharax oo ahay axmed shire maxamed falagle cabdulaahi axmed samatar cabdiraxmaan aadan sabriye axmed cabdi kaariye waxay u kala heleen codadka sidaan soo socoto axmed shire maxamed falagle wuxuu helay 1 cod cabdulaahi axmed samatar wuxuu helay 9 cod cabdiraxmaan aadan sabriye wuxuu helay 1 cod axmed cabdi kaariye qoorqoor wuxuu helay 66 cod baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ama golaha sharci dejinta oo ka kooban 98 xildhibaan 3 markii loo dhigo waxay noqonayaan 2/3 59 iyo jajab sida ku cad qodobka 47 wuxuu ku guuleystay axmed cabdi kaariye 3/2 lagu daray 6 cod sidaas darteed wuxuu axmed cabdi kaariye noqonayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug 4 sano ee soo socoto